هذا مر لباديو iyo mar saddexaadba waxaan ku soo guda jirnay chapterkii 12aad ee ka waramayay laba ka koobnaa laba qaybood qaybtooda ahayd TCIB version 6 keena ka warama arrimaha la xiriira qaybta labaadna waxa ka waramaysa wireless technology weli ma gaari weli waxa ku guda jirnaa arrimaha la xiriira TCIB version 6 waxaan ka soo waranay saddex shay ama saddex difference ama saddex shay oo astaamada ku kala duwanaaye IB version 4 iyo IB version 6 waxaana 10 astaamad aan sheegina fideogana saddex astaamad ay ku kala duwan yihiin TCIB version 4 iyo version 6 oo hadii lagu weydiiyo aad ku sheegi karaysid ayaan kaga waran doonaa astaamtan afraad ee ku kala duwan yihiin TCIB version 4 iyo version 6 ayaa waxaan ku sababeyn karaynaa ama ku tilmaami karaynaa sida tan waa astaantii afraad ee ku kala duwan yihiin waxaan leenahay IB version 4 ka marka la configuration gareynayo ama ciwaanka IB version 4 ka marka computerka la siinayo saddex midkood ayuu ku qaataa halka IB version 6 kana marka asagana la siinayo saddex midkood uu ku qaato saddexda midkood way isku dhow yihiin waa inaad kala fahantaa oo fiirso qaab dhismeedka koowaad ee uu ku qaato IB version 4 ka qodobka fiirso waxaan ku qaabka koowaad ee IB version 4 ka ku qaato xalay static motor hab la ilaa static ya qaab la ilaa dynamic ya qaab la ilaa abiib saddex waxay kala duwan midaan u dulsaagno ciwaankaaga IB version 4 ka qaabka koowaad ku qaato waxa loo yaqaan static motor waxa weeyaan من خلال عملية يدوية اللغة العربية دلوقتي يدوية واحد لقوا إن كأنت لقى سيو كمبيوتر الله يلا كمبيوتر كوا كمبيوتر 1 وعوان كيسو حوية 001 وكله كمبيوتر كلا بس سنة كعوان كوي كمبيوتر 3 عوان كوي كمبيوتر 4 وعوان كسيرفر كوا عوان أي استاتيك أنت لقى سينية each device each أي بدرس ولا سينية أما أني device أني واحد سينية عوان أو استاتيك حوية إن كأنت لقى سيو meela socota oo engineerka shabakada ama cidii marka loo idmaadeen ciwaanka siiso ayaa siinaya marka static habka koowaad IB version 4 ka lagu siiyo waa in gacanta laga siiyo habka kale waxa weeyaan dynamic motor hab la dynamic oo dynamic waxaan ka wadnaa in DHCP server inta meesha la dhigo server ba meesha la dhigaa server kaas loo idmanaya ama loo xil saarayo in computerada tirada inta leeg oo ciwaanada inta uu siiyo ciwaanada uu siinayna waa loo damaanad qaadaya inta computer uu siinay waxa soo dhan wala qorsheynaya marka waa maxay tiyoor waxa weeyaan inagu gacanta ka siino tan labaad inaan server gooni oo la yiraahdo DHCP server oo la yiraahdo dynamic host configuration protocol DHCP baa loo soo gaabiyaa in loo idmado serverka inuu ciwaanada computerada siiyo ciwaanka noocaan uu siiyo goorta uu ciwaanka ka qaado adigu shaqo iyo nooca u dhiganta هناك صدحات عوان لغو سيو كمبيوتر وحوية عوان ليلة أهب ليلة أبيبا وامحي أبيبا حوية هتكسو قادا سيرفر أيان ماشي ليقنو سيرفر بان لغو حانو لناي سيرفر هيبرو ودي HCP سيرفر وحاتي سال صدح لا كمبيوتر عوان داسي حد ديناميكا ما كورو دورنا سوما وحانو عوان كان عوان كاسي كمبيوتر كان كلا عوان كاسي كمبيوتر كان كلا عوان كاسي فحات كسو قادا دي server kii DHCP server ka cilad ku timaado cilada tay doonta noqoto ama dabka ka tago ama iska xumaado ama ciwaanadii la siinay haba dhamaadaan oo cilada doonta ku timaadee hadii serveradiina loo diro oo serverada marka hore loo serverka leeydi computerada ciwaankaasi computeradiina lagu wadi ka serverkaas aan yahay ciwaanadii oo indeys ciwaanka ka doonin lahayn dhibaato ay ku timaado dhibaato tay doonta noqoto ma mid inaga dhakeena ama dhanka serverka waxa noqotay taasina ma khosayse maxaa xal ah كمبيوترada ciwaan buu baahan yahay cid ciwaanka doonin lahaayeen oo khalkhal ama dhibaato ku tibi maxaa xal ciwaanka kaga doonaya waxa qaadanaya ciwaan la ilaa abiba oo loo soo gaabiyo waxa loo soo gaabiyaa waan sheegna fil waxa loo soo gaabiyo automatic waxa loo soo gaabiyaa waxa loo soo gaabiyaa waxa loo soo gaabiyaa waa automatic ayaa loo soo gaabiyaa pida waxa loo soo gaabiyaa pida ku xigta waxa loo soo gaabiyaa private waxa loo soo gaabiyaa بريفض أي الله صقابية أي بيدا أنت وإنترنت بروتوكول أي ده الله صقابي وإنترنت بيدا أنا بروتوكول أي ده أنا أدريس مركا أبيب أدريس أما أبيب مصر واحد أبيب مصر قرنيت ما ده واحد هو مركا كمبيوتر هذا الله شيء إنك كسوق تان DHCP سيرفر DHCP سيرفر كدون لا يعني دبعت كنت ما دبعت تدون تان نقطة إيوانك أي قادنا ين أيال إلى أبيبا marka maxaan ku garanaya idaydani computeradaydani
ay DHCP serverkii ay ciwaankii ka dooran lahaayeen aanay si saxda uga soo qaadan waxaan leenahay ciwaan walaal ka bilowdo 169.254 ciwaan walaal labada god ugu horeeyo ogsooni inuu yahay abiba taasoo macnaheedu tahay in computerkaaga uu DHCP serverkii si saxda aanu ka soo akhrisin taasoo macnaheedu ciwaanku ay tahay abiba 169.254 labada waxay doonaan noqdaan hadii ciwaankaagu ka bilowmo IP addresska ogsoono ciwaanku ay sameeyay ciwaankii saxda ah ee waa abiba saddexda hab ayuu ku qaataa IP version 4 kaagu computerkaaga IP version 6 kaagu computerkaagu wuxuu ku qaataa saddex u dhigma oo ah kow habka la static method oo maxaan ku macnay static method oo tii hore muhiim macnaheedu in computerka uu yimaado nin network engineer ama cid kale loo yimaado oo gacanta ka siiso computerkaaga IP version 6 ama ma yahay habka labaad oo dynamic method oo ah in DHCP server version 6 loo yimaado in ciwaanka IP version 6 ka uu qaybiyo ama si automatically uu qaato automatically maxaan ka wadnaa inuu qaato ciwaan ah link local address on gaari doono linki local address dad aragtay loo maqashay computerkaagu waxa ay automatically buu qaatay IP version 6 tan maqasho waxa fahantaa inuu haysto ciwaan ah nooc kamida noocyada IP version 6 ka oo la yiraahdo link local unicast address link local unicast address marka asaanta afraad ku kala duway waa sida ciwaanka uu helaan asaanta shanaad ee ku kala duwan IP version 4 ka iyo IP version 6 ka ayaan waxaan ku sababeyn karaynaa in IP version 4 ku uu qorayay nidaam decimal system ah nidaam ama decimal number decimal number maxaan ka wadnaa inuu IP version 4 ka uu kaliya wuxuu ka koobayo xuruf muxuu ka koobayo xuruf yaan wuxuu ka koobayo numberaan qura wax xaraf oo IP version 6 kaaga soo guda gala ma jiro qaab dhismeedku uu qorayay waxa decimal system ayaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa decimal system وهدان كان ku qoro ciwaan aan idhaw 10.a.12.100 adoo inta isku ay waxaad oran karaysaa waa IP version 4 ma waayo waxa leeyahay IP version 4 waxaan u bartay numberaan qura waxa xarafkan ku dartay eeda marka IP version 4 ku wax xuruf oo lagu dhax arko ama character ma jirto halka IP version 6 ku kala cagsiga yahay uu yahay hexadecimal system uu qoray oo macnaheedu tahay xuruf iyo numberaan isku dhex jira hexadecimal system taqaanayo xuruf iyo numberaan isku dhex jira weeyaan sidaad ku aragtay IP version 6 taasna waxa ay saanta shanaad ay ku kala duwan yihiin in IP version 4 kuna qaab dhismeedku uu qoray decimal system yahay IP version 6 kuna xuruf iyo numberaan isku dhex jira oo loo yaqaan hexadecimal system astaanta lixaad ay ku kala duwan yihiin IP version 4 ka iyo IP version 6 ka ayaan ku sheegi karaynaa in IP version 4 ka in IP version 4 ka kana ah marka la raadinayo ciwaan IP version 4 ah ciwaankii kale u dhigmeeyay MAC addresska ahaa waxa la adeegsadaa protocol la ARP oo loo soo gaabiyo address resolution protocol ijaada canaawiin maxaa ka wada waxaan ka wadnaa ka soo qaad waxa noo yaala halka waxa noo yaala computer room bay noo yaala computer room bay noo yaala okay halkana waxa noo yaala switch waa ka noo yaala halkana waxa noo yaala Allah hadu Allah inoo idmo computer kale inoo yaala okay computer room oo kana ayaa wuxuu rabaa lagu warti switch ku xirey computer oo kana ay xireen xoog u diro computer 2 sidoo computer wala xoog ugu diro computer 2 waxaad ka soo qaday inuu hayo IP addresskiisa wuxuu hayaa IP address ku leeyahay computer 2 laakiin garamayo MAC addresska uu leeyahay computerkaas maxaa xal ah waxa la raadinayaa MAC address ku leeyahay computer si loo raadiyo waxa la adeegsanayaa protocol la ARP oo loo soo gaabiyo waxa loo soo gaabiyaa halkaasaan ku qorina waxa loo soo gaabiyo protocolka la adeegsanayo si loo soo ogaado computerka IP addresskiisa la hayo MAC addresskiisa si loo ogaado protocolka la adeegsanayo ARP baa la loo soo gaabiyo address resolution resolution protocol oo ARP waa resolution protocol bidana waa protocol marka waxa loo yaqaan protocol ijaada canaawiin alfisaiya protocolka sahilitaanka ciwaanka MAC addresska ah marka IP version 4 kala joogo si loo soo raadiyo MAC addressku leeyahay computer waxa la adeegsadaa protocolka la ARP halka IP version 6 isla saamid lamid ah halkii laga adeegsan lahaa ARP waxa la adeegsadaa ciwaan la yiraahdo multicast neighbor solution ama waxa noqonaysa solicitation amba bio waxaan ku IP version 6 ka marka la joogo haddii aad computer aad haysid IP version 6 kiisi laakiin aad la adahay
MAC addresskiisii waxaa la adeegsaday ciwaan la yidhaahdo multicast neighbor solution oo loo soo gaabiyo MNS oo loo soo gaabiyo multicast neighbor solicitation ama solicitation oo macnaheedu tahay waa ciwaan la adeegsanayo si loo soo ogaado MAC addresska uu leeyahay computerka la leeyahay MAC addresskiisa marka fiyoga intaas ku soo koobeen waxaan ka warnaa saddex astaamood oo ku gudbaya IP version 4 ka IP version 6 ka sidoo kale IP version 6 kuna ugu gudbaya IP version 4 ka wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh